marka hore ana la qaba tacsida xogeeya xisbiga inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un dadka saraakiisha qiimaha badan lahaa ee cadawgu aan wareemine dalka gudihiisa dhabarka laga wareemay tacsiban u gudbinaya talabaad waxa weeye farsamo xumada madaxtooyadu ay ku dhaqmayso ee dhalisay in xisbigii maanta talada dalka hayay iyo xukuumaddiiba ay isku raacaan in hawshani ay xisbiyada mucaaradku ka dambeeyeen arrinkaas waa arrin aan meesha qaban kuna jirin waxaanu leenahay hadii fal cidi ka dambeysay waxa la oran karaa kii qor lugud bay xukuumaddu ka dambeysay sababtu waxa weeye shan casho falkaasi jira xukuumaddu tacsiimay sameyn madaxweynuhu kama hadlin waa qof caadi u dhintay baa loo tacsiideeyaa laakiin nimanka mujaahidiinta ee dagaalka ku jiray ee difaaca dalka u taagnaa waxa ku dhacday dhabarka laga wareemay wax ay xukuumaddu ka geysato ilaa hadda ay sheegtayna ma hayno waxaan eedan ka ahayn xisbiya halka kiciyay xisbiya gabiil ka shaqeeyay hadaan nooca ahayn taa micnaheedu waxa weeye waxay ku sheegaysaa xukuumadda maanta jirtay inaanay diyaar u ahayn dalka inay ku maamuli karto wanaag iyo maamul wanaag inay ku maamuli karto waxa ay wada waxa weeye waa maamul xumadaas waxay keentay in ay eed meel aan lahayn ay saarto bay keentay maanta waxa looga fadhiyaa dadkan ay laynaysa iyadoo rasaas ku laysay inay ka jawaabto shalay uu hadlay afayeenka madaxtooyadu inuu tacsiiday kuwa iyagu laayeen bay ahayd 13 qof baa dhaawacan rasaas nool baa ku dhacday xaq miyaa loogu leeyahay sarkaal hore ka dhintay dila magaalada ku dhow sarkaal hore ka dhintay ilaa hadda looma tacsiin waxna lama weydiin waxna looma sheegin waxa weeye xalay baa madaxtooyada loogu yeeray oday kamid ah inamadii dhintay aabahood de arrinkaas waxa weeye waxay keenaysaa in xukuumaddu xitaa aan u sinin ragii dhintay saraakiisha ah oo aan ragaana aan u yeerin reer dila aan u yeerin iyagu dhowd inay tacsiisayeen la hadasho bay ahayd waayelku yeedheed anigu waxaan leeyahay xukuumaddan midda looga fadhiyaa ee xisbigu maanta uga fadhiyaa waxa weeye sida ay wax u dhaceen waa in loo saaraa guddi heer qarana sababta ay ku dhacday in shan casho nimankaasi wax ay ku dhinteen iyo cid dishay iyo meel lagu dilay iyo mid aan la cadeyn xukuumadda aan lagu cadeyn ilaa hadda aan laga hayn guddigaas aan codsanayna in la saaro guddi qaran baaris qaran lagu sameeyo taas aan codsanayna